dibadbaxyaal careysan ayaa maanta mar kale isugu soo xoomay afaafka hore ee isbitaalka county oo ku yaala agagarka isgoyska Ngamia Road ee waaxda township ee bartamaha magaalada Garissa. Dadkan oo taayirro ku gubay wadada aada xaafadda Garissa Yaray ayaa sidoo kale qalqal geliyay howlihii isbitaalka gaarka loo leeyahay ee loo yaqaan county taasi oo deetana keentay in cabsi darteed shaqadii isbitaalka ay istaagto. Dibadbaxayaasha ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali doonin in isbitaalkan uu ka sii shaqeeyo gudaha magaalada Garissa inta milkiilaha isbitaalka uu wado faragelinta uu ku hayo isbitaalada gaarka loo leeyahay ee magaalada, gaar ahaan isbitaalka Al Jazeera oo ku yaala wadada dheer ee Kismaayo Road. gaar ahaatee arrintan ayaa cabsi ku abuurtay macaamiisha isbitaalka county, lamana oga sida ay xaaladdu ku dambeyn doonto. Xiriiro aan isku daynay inaan la sameyno milkiilaha isbitaalka county ayaan inoo suuragelin si aan u ogaano eedaha loo jeedinayo.